Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkani waa Somal podcast with Stream Your Voice. Halku dhigeenuna waxa weeye wariyo wacaal waagi baryaba oo warsida Somal podcast ee ka wacan. Walaalayaal sida hore u tibaaxayba waxaan maanta qaada dhigaynaa barnaamijka unemployment benefit. Waa maxay barnaamijka unemployment benefit? Su'aashaas baan doonaynaa inaan dadka u cilaamino si ay uga faa'iidaystaan. Inta badan unemploymentu waa caymis bixiso gobolka Washington hay'adiisa la yiraahdo Economic Security Department taasoo mid la mid ah gobolada Mareykanka laga qaato waa lacag ay maalgeliso dowladda federaalka ah oo ka timaada canshuuraadka laga qaado shirkadaha iyo shaqaalaha intaba balse sida u kordhay unemployment sida u kordhay caabuqa 2019 ee COVID-19 loo yaqaano waxaa batay dadka qaadanaya ka faa'iidaysanaya waxaa la khafiifiyey shuruudaha iyo xuquuqda lagu heli karo unemploymentiga maadaama lockdown badan uu jiro oo dowladdii ay dad ku khasabtay xayiraad dhaba balse sidaa la socotaan unemploymentu waa caymis qof kasta oo shaqada ka taga oo ay ka dhammaato uu xaq u leeyahay oo ah mid guna joogta ah inta uu shaqadoonka ku jiro inta badan 6 bilood weeye balse waxaan jeclahay barnaamijkan faa'iido noocee ah buu leeyahay oo looga faa'iidaysan karaa inta badan dadkeenu ma la socdaan ama ma ogsoona xuquuqda dheeraadka ay ku heli karaan unemployment benefit haddaad tahay Washington State resident oo aad qaato Economic Security Department caymiska bixiso oo benefitka waxaa taa ku mataasan inaad xaq u leedahay inaad samayso wax la yidhahdo skills up oo xirfadaada kor u qaado taas oo ay maareeyaan hay'adaha loo yaqaan workforce system waa hay'ado maxalli ah oo deegaan kasta Washington ka tirsan sida Washington State qaybteenan King County nawaaxigeeda qaybaha ugu waaweyn waa midda ku taala Rainier Beach Rainier Workforce midda ku taala Abram Workforce South Sierra College North Sierra College Takwila iyo dhowr meelood oo ah Satellite barnaamijka marka aan doonayo dadkeena in u iftiimaanta waxa weeye Uyawa program Uyawa waa barnaamij ay maalgeliso dowladda federaalka ah oo ay maamusho hay'adda Employment Security Department oo loo yaqaan ESD Uyawa qaybtiisa DW waa dislocated worker oo ah qof shaqadii laga casilay oo ruqsad laga siiyey ama sida maantaba qof kasta oo xaq u leh inuu qaato gunnada joogtada ah ee employment security ka imaanaysa wuxuu xaq u leeyahay inuu korso aqoontiisa isagoo qaadanaya tababaro dheeraada oo ku kobcinayo kartidiisa iyo aqoontiisaba tababaradaasi waa mid dowladda dhexe dabcan ay taakuranayso oo malaayiin doolar Mareykanka ah wuxuu qofku qaadan karaa tababarada sida caafimaadka kale sida datada ama computer science oo ah certificate programyada wuxuu noqon karaa Java expert oo macnaha qof web developer ah oo sameeya macnaha website waxaas dabcan waa barnaamij 3 bilood 6 bilood iyo sanadii inta badan u badan marka haddaad tahay qof qaata caymiska ESD-da fadlan la xiriir hay'adaha workforce systemka oo ka faa'iideyso xayraadan inta lagu jiro iyo haddii laga baxaba intaadan shaqada ku laaban inaad qaadato xirfado dheeraad ah kuwaas oo waxtar ku ah noloshaada qoyskaaga iyo bulshadaada intaba waa hubanti in badan oo dadkaygu inay xaq u leeyihiin inay ka faa'iidaystaan qaar badan waa nala soo xiriireen nasiib wanaagna waxaanu u gudbinay macluumaad dhammaystiran kuwaasoo ah kuwa waxtar u ah bulshadeeda intiina badan oo degan Washington Seattle area waas naqaanaa oo muddo badan workforce system ku soo jiray last 10 years alone waxaan ahaa qof u dhaqdhaqaaqa kobcinta dhaqaalaha iyo inay dadkeenu helaan xirfado iyo farsamooyin baaxad leh
maantana ha noqoto mid aad isgaarsiisaan dhammaantiin middan kuma koobna Washington State laakiin qof kasta oo jooga Maraykanka oo qaat unemployment gobolada sida Minnesota kale Ohio kale Wisconsin all of those states waxaa ka furan hay'ado maxalli ah oo reer deegaan ah hay'adahaasi waa kuwa u dhigma ESD oo kale marka haddaad gobolka Washington ku dhaqnayn dabcan waxaa jira hay'ado la mid ah oo gobolkaaga ah oo economic security-ga qaabsan marka barnaamijka waxtarka oo ah bulshada waxa weeye WIOA program waa barnaamij aad ku kobcin karto aqoontaada aad ku heli doonto insha allah fursado dheeraad barnaamijku waa mid aan ku koobnayn in laga bixiyo kharashaadka iyo miisaaniyadda u baahan tahay inaad ku aado iskuulaad sida truck driving sida CNA adu waxaan degree ahayn ee short term training baa lagu qaataa wayna jiraan dad farsamo gacmeed dheeraada ku sii qaata waxayna u baahan yihiin waxa la yidhaahda CAT commissioner approved training waa commissionka ESD-da hay'adda dhaqaalaha ee gobolkeena baa waraaqo loo dirayaa waraaqahaasina waa kuwa ka imaanaya inta badan kollejyada iyo iskuulaadka farsamada gacanta iyo meelaha xirfado waqti dheeraad u baahan yihiin saa darteed waxaan kaa codsanaynaa inaad la wadaagto saaxiibada iyo ehelka iyo ummaddaba dad badan baa laga yaaba inay ka faa'iidaystaan marka war la hela oo talo la helaa halkani waa Somal podcast oon jecelnahay inaan ku qaadaa dhigno oo aanu dadka u soo bandhigno barnaamijyo waxtar u ah si loo helo bulsho dhammaystiran haddaad doonayso inaad marka caafimaad qaadato dabcan unemployment maanta aad hesho tag kollejyada maxalliga ah una sheeg inaad tahay qof xaq u leh barnaamijka WIOA programs